inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay gurigan caawa ku soo dumay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir haddana waxaa soconaya gurmad degdeg ah oo loo samaynayo dadka ku hoos jira dhismaha gurigan dumay. Gurigan ayaa ka koobnaa ilaa 3 dabaq waxaana deganaa qoysas Soomaaliyeed iyadoo guriga soo dumay uu ka mid ahaa guryaha qadiimiga ah ee ku yaala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. Gudoomiyaha maamulka degmada xubno mas'uuliyiin ah oo ka tirsan gobolka banaadir ciidanka gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir iyo dadka shacabka ah ee ka agdhow goobta uu guriga ku dumay ayaa waxa ay samaynayaan dadaallo iyo gurmad degdeg ah oo ay ku doonayaan sidii ay ku soo samata bixin lahaayeen dadka dhismahan ku hoos jira. Muddadii aan goobta joogay waxaan arkayay ilaa 3 qof oo ka mid ahaa dadka guryaha uu ku soo dumay isla markaana laga soo saaray dhismaha hoostooda waxaana loo qaaday cisbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasoo iminka lagu daweynayo. Mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ahaa xilliga guriga uu dumayana dhacdadaasi la kulmay ayaa u warramay telefishinka Universal waxaana uu ka sheekeeyey waxa uu indhihiisa ku arkay iyo sida uu dareenkiisa noqday markuu maqlay guriga 3 dabaq ka kooban ee caawa soo dumay. bismillaahi raxmaani raxiim waxaad u jeedaan dhibaatada caawa halkan ka dhacday degmada xamarweyne gaar ahaan maaragtay agagaarka masaajidka Marwaas. aniga qudhayda waxaan ka soo baxay maaragtay bunkuweer anigoo markaasi aan gacanta liga soo dhayay kadibna waxaan soo maray halkan markaan gaaray maaragtay wadada waxaan arkay meeshaan maaragtay dabaqii oo dumay dabaqa wuxuu ka koobnaa ilaa iyo maaragtay 5 biyaano ilaa kor iyo hoosna dad ku jiray waxa hadda la soo bixinaya maaragtay dhaabacyo ilmo iyo maaragtay dad waaweyn ah waxa hadda maaragtay halkan taagan maaragtay dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay weli waxa ku jira dad si aan ognahay ama aan dareensanahay dhammaan maaragtay waxaan rajaynayaa in ay maaragtay gargaarada degdega inay soo gaaraan sida maaragtay gacmada iyo cagafyada waana lagu hool jiraa insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay ay noqoto masiibadan masiibo rabbaani waaye laakiin waxaan rajaynayaa degdeg gaar ah diyaar ah in nala soo gaaro insha Allah doo ilaahay. Si kastaba ha ahaatee gurmadka iyo dadaalada rasmiga ah ee loo samaynayo dadka ku hoos jira dhismaha guriga caawa ku soo dumay waxaa ka qayb qaadanaya shacabka ciidamada gurmadka degdega ah iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir kuwaas oo samaynaya dadaallo wax ku ool ah oo ay ku doonayaan sidii dadka dhismaha ku hoos jira ay u soo samata bixin lahaayeen. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.